عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عيد مبارك كل عام وأنتم بالخير. meel kastoo aad kala joogtaan dacalada dunida waa Axmed Daawud oo idin leh ciidan ciideeda ku gaadha bashbash iyo barwaaqo iyo nabadqab iyo dhulalkeena Soomaaliyeed oo wada nabad ah. waxaan si gaar ah u hambalyeeynaa oo aan leeyahay ciid mubaarak kul caam wa antum bil khayr bahda Axmed Daawud channel iyo guud ahaan qaraabada iyo asxaabta oo aan leeyahay ciid mubaarak kul caam wa antum bil khayr. maanta jeclaystay inaan idin la wadaago ma sha Allah wadooyin qurqurux badan oo magaalada Hargeysa ay ka wado dawladda hoose gaar ahaan halkan imika aan joogo oo aan jecelahay inaan aad u faahfaahiyo dhibaatooyinka ay kala kulmi jireen bulshadu, balse laakiin maanta aynu arkayno inay bareeshiyadii ka socdaan oo aynu leenahay aad bay u mahadsan yihiin dhammaan bahweynta bulshada ku nool 31 May gaar ahaan iyo dawladda hoose oo runtii aynu oran karno gudida dawladda hoose ee 31 May iyo waliba dawladda hoose guud ahaan ee uu hogaaminayo Maayir Cabdikariin Axmed Mooge oo runtii wadadan oo 3 xaafadood oo isa saaran ay marto. xaafada koobaad oo noqonaysa markaa Sheekh Cumar, xaafada labaad oo noqonaysa Faluuja, xaafada saddexaad oo noqonaysa Qandahaar iyo waliba Isha Boorama iyo guud ahaan 31 May oo isku duuban. haddaba wadadan dhibaatooyin kala duwan ayaanu kala kulmi jirnay gaar ahaan bulshada Hargeysa ay kala kulmi jirtay. dhibaatooyinkaas oo ay kamid ahayd waqtiyada roobku doo markaa xilliyada uu roobku doo dabcan waxa istaagi jiray gaadiidka oo kala guyi jiray sababtoo ah basasku ma awoodaan inay dhex maraan dooxyada iyo biyaha ka talaabaya wadadan. taasina waxay ku qasbi jirtay bulshada in marka qaar ay kala bariyaan familiyada qaarkood ay kala baryaano qolana aanay gurigoodii gaadhin habeenimo qolooyinka kalena ay markaa ardaydii oo kale macallimiintii iyo dadkii suuqa ka shaqaysanayay dhibaato weyn ay ku qabeen wadadan. sidoo kale gaadiidka oo iyaguna meesha ka marnayn oo dhibaato weyn ku qabay baa jiray isku socodka wadadan sababtoo ah dabcan gaariga cusub waxa laga yaabaa markiiba inay dhibaatooyin soo gaadhaan oo hantaaqooyin kala duwan oo gaarigu isagoo cusub oo iska noqdo kharaab. haddaba alxamdulillah dawladii hoose Hargeysa ayaa markaa ku baraarugtay wadadan baahida weyn loo qabo kadibna waxa iskugu tagay shacabkii iyo dawladii hoose iyadoo markaa 31 May waliba dawladda hoose qaybta maamusha 31 May oo aad uga hagar baxday sidoo kale u sameysay markaa bareeshiyo aad u qurux badan oo runtii aad u adag oo bulshadiina ay kaga raysatay kala guyi faraha badnaa ay ku dhici jiray gaadiidkina ay kaga raysteen gaadiidkina sidoo kale ay kaga raysteen hantaaqooyinkii kala duwan ay soo gaari jiray iyo burburkii xooggan ay ku dhici jiray. dabcan nafa badan baa ku badbaaday sidoo kale waxa fududaaday waxaan xasuustaa xilliyada qaar markaad ka soo safarto Qandahaar oo kale ama Faluuja magaalada Hargeysa inaad soo gaadho waxay kugu qaadanaysaa saacad iyo dheeraad marka qaar. laakiin maanta maadaama wadadii ay u dhameystirantay xaafada 31 May inta hadhayna ay aad u yar tahay waxaan u rajaynayaa inuu safarkaasina u dhawaaday gaadiidkina dhibaatadii ay ku qabeen ay ka badbaadeen shacabkiina runtii culaysadii ay kala kulmi jireen xilliyada roobka ay ka badbaadi doonaan insha Allah maadaama barishadii hadda qaarkoodna la wado qaarkoodna la dhameystiray ma sha Allah. waxaanu leenahay dawladda hoose waa dabcan hoggaan fiican bay heshay Cabdikariin Axmed Mooge iyo sidoo kale team aad u caqli badan aadna u dareensan bulshadu baahida u soo isla markaana uu isagu hogaaminayo iyaguna si fiican ugu hoggaansan. waxaanu leenahay aad ba u mahadsantihiin halka ka sii wada wadooyin fara badan oo kala socda jira. dabcan tan waxay kamid ahayd kuwa ugu baahida badan leh bulshadu ay baahida ugu badan qabtay 31 May hambalyo wadadii waa wax yar baa ka dhameystirkeedii hambalyo ayaynu leenahay insha Allah.